أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ودروس تحناها هيد وأن كشي كينيني دقال الذي لحمري ضيوق المسلمين تي كريستانكا أنت وحيا كشي جيا حريري تاريخها لحمري ودمدي غير يوروب يبقردي حبشيدا نوع وها ولا ليال تاريخ ذو وحي قرطي in dowladii Roomaanka iyo nimanka la yiraahdo xabashida uu xiriir dhex maray ama xiriir ka dhaxeeyay xiriirkaas oo ah mid diineed sababaha keenay inay Yaman qabsadaan waxa ka dambeeyay Roomaanka oo yiri wadanka tag qabso weligoodna sida ayaa loo garab taagnaa ilaa maanta sida ayaa loo garab taagan yahay xiriirada dhex maray wadamadii reer Yurub iyo nimanka Etoobiyaanka la baxay laakiin la dhihi jiray Abasiiniya waa xiriir aad u badan waqtiyo badan ayuu socday qurun badanna wuu socday xilli fogna wuu soo bilaawmay ilaa maantana waa sidiisii isma bedelin kitaabka la yiraahdo al-Alaaqaat as-Siyaasiyya bayna muslimiin Saylac wa Nasaara al-Habasha fi al-Usur al-Wusta ee uu qoray ninka la yiraahdo Rajab Maxamed Cabdul Xaliim oo mucaasirka ah wuxuu ku sheegay 13 xiriir inuu dhex maray ayna ka badan yihiin buu yiri laakiin inta aan soo khulaasay oo aan soo koobay baa inta kitaabkaas lagu sheegay yaan ana wax yar ka sheegay hadii Ilaahay yiraahdo waxa la yiri qarnigii 11aad dhamaadkiisii xiriir baa dhex maray boqoradii xabashida iyo wadamadii reer Yurub kaas oo ahaa in xabashidu ay qabsato badda cas iyo baabal mandab badda cas iyo baabal mandabna waxay ahaayeen meelaha ganacsiga ugu badan ama maraakiib doonyaha ay maraan kuwa badda cas oo isku xirtaa la yiri ummadaha Hindiya iyo China iyo wadamada fogfog ilaa caalamka waa meesha isku xirta waana meesha ilaa hadda wadan kasta oo awood isbada uu ku dadaalayo sidoo saldhig military uu heli lahaa oo adikaaba arkay hadda u joogaba waxay marka xabashidu ku dadaashay in xiriirkaasi ay uga faa'iideysato in dadweynaha muslimiinta ah ay jaarka la ahaa oo weligood wax dhibaato u geysan inay weerarto marka ayay bilowday sidii dhulka muslimiinta ee bariga Afrika ay u qabsan lahayd gaar ahaan badda laana badda waxa marka haystay boqorro muslimiin ah ama salaadiin muslimiin ayaa ku teedsanaa oo laga bilaabo meesha Berbera ilaa dhulkan hadda la yiraahdo Casab iyo Musawac iyo oo nimankan anfarta ay leeyihiin laga Eritreanku Eritrea lagu magacaabay dhulkaas oo dhan muslimiin baa haysatay oo ka talinaysay marka taasu mar bay ahayd waxa kale oo la yiri markay ahayd 1165 boqorkii xabashida ayaa wuxuu warqad u diray boqorkii Kiristaanka ee joogay Turkiga marka Turkiga waxa haystay dawlad Kiristaan oo la dhihi jiray Byzantiya Sharqiya ayaa la dhihi jiray wuxuu ku yiri boqorka xabashida ayaa leh waxaan xukumaa 72 boqor oo ay dhamaantood jisiye isiyaan uu yiri dagaalkana markaan aaday waxa ay galbiya oo i raaca ayuu yiri 300 oo saliib oo dahab lagu xardhay arinta marka 300 oo saliib oo dahab lagu xardhay wuxuu ka wadaa saliibnimadiisa iyo kristaanimadiisa iyo sidii diinta kristaanka ugu weyn tahay inuu ku beer la xawsado boqorka kristaanka ee Turkiga joogay waxa kale oo la yiri 1168 markay ahayd waxa galay boqorkaas macna waa 3 sano kadib damac inuu Masar weeraro uuna qabsado maxaa yeelay xabashida ayaaba ballan u qaaday inay koonfur ka soo weerarayso dalka Masar oo mana warqadda waan soo koobay waxa kamid ahaa oo ku dhex jiray marka uu leeyahay 72 boqor baa yaan jisi iga qaadata awood baan leeyahay Masarna waan awoodaa inaa xagga koonfur kaga soo dhufto xiriirada dambe oo aan sheegi doonana waan ku cadeyn doonaa hadii Ilaahay ilaa taas mar bay ahayd waxa kale oo la sheegay 314 in boqorkii xabashida ay la dhihi jiray dam arcad ay la xiriiray shaaralkii 7 ee Faransiiska wuxuuna ku yiri waa in la mideeyaa dawladaha Kiristaanka ah oo haday ahaayeen Katoliga ama Orthodoxiska oo marka colaado diineed oo badan iyo dagaalo badan ay dhex mareen colaado diineedna ay ka dhaxaysay meel aan u soo wada jeesanaa cadawga muslimiinta oo gaalada ah lana baabi'iyo dhulkoodan laga qaato sida ayuu leeyahay warqad ku qoran waxa la yiri boqorkii Faransiisku markuu inta ku yiri shaaralka waa uu ka soo jawaabay wuxuu yiri wuxuu markiiba bilaabay baa la yiri arintaas inuu sideetay u fuliyo
doonyo dagaal ayuu diyaariyey baa layidhi oo masar lagu weeraro laanna masar waxay ahayd xarunta islaamka marka looga talinayay ama waddanka marka ugu awoodda badnaa ayuu ahaa masar waana meeshii alxuruub saliibiya laga difaacay boqorkii faransiiska ee la dhihi jiray Louis taasic na lagu qabtay marka taas ayuu ogaa markiiba wuxuu ku talagalay inuu masar weeraro doonyo ayuu diyaariyey mashruucii intuu ku guda jiray ayaa waxaa dhintay baa layidhi boqorkii xabashida ee mashruuca keenay mashruucii marka halkaa ayuu ku fashilmay waxaa kaloo la sheegay marka 1373 markay ahayd in boqorkii xabashida uu u diray boqorkii Qubrus joogay ee uu ku yiri Masar waqooyi ka soo weerar annaka furban ka soo weeraraya macnaha marka Masar joogtid Qubrus waxay ka xigtaa jihada waqooyi xagga xabashiduna Masar waxay ka xigtaa koonfur boqorkii Qubrus markii uu dhaqan galiyay magaalada Iskandariya ayuu si gaadma ah habeen muddo ku soo galay uu baabiyay baa la yiri boqorka xabashidina isaguna dagaal ayuu soo qaaday oo rabo dagaalka inuu kaga qayb qaato qaniimada muslimiinta iyo dibka loo geysanayo asna uu dhinaciisa uu ka helo waxa uu muxuu ahaa ama dib uu u geysto intuu soo socday muddo dheer bay ahayd baa la yiri ba magaalada la baabiyay wuxuu maqlay magaalada waa la baabiyay boqorkii Qubrusna uu iska laaftay oo ay isgaarsiin iyo ma jirin xiriirkana hadda jira taasi mar bay ahayd waxa kaloo la sheegay 1400 maray ahayd 1429 in boqorkii xabashida la dhigi jiray Isxaaq ibn Daawud in la dhigi jiray oo warqad u qoray boqoradii Faranjiga isagoo ku dhiiri gelinayay in la sameeyo isbahaysi kristaan ah oo lagula dagaalamo islaamka dawladda Masar lagu bedelo dawlad kristaan ah waxa kaloo la sheegay 1439 magaalada Florence waa magaalo Talyaaniga ku taala inuu ka dhacay shir lagu mideynayo madaahibtii kristaanka ama wadamadii kristaanka ama dawladihii kristaanka oo dhan kaas oo boqorka xabashida kaas oo ahaa boqorka xabashida macnaha uu ka qayb galay kaas oo ah in masiixiyadda laga badbaadiyo inay qabsato dawladdii Cusmaaniyiinta oo markaa dawlad xoog leh ahayd iyo mamaaligtii cadal ee bedeshay aafaad oo iyadana dagaal baan kula jirtay xabashida macnaha dhulka bariga Afrika waxa ka sameysmay mamlaka la yiraahdo awfaad ama ifaad way baabaaday markay baabaaday ayaa waxa bedelay magaalada la yiraahdo saldana la yiraahdo cadal saldanadaas oo dagaal baan kula jirtay xabashida marka waxay yiraahdeen oo macnaha shirkaas ujeedadiisu ay Florence ka dhacay in dawladda Cusmaaniyiinta laga badbaadiyo inay Yurub qabsato dawladda cadal ee xoog leh oo dagaalka xabashida kula jirtana oo bariga Afrika ka hana qaadana kristaanka buuraha Itoobiya ku nool laga badbaadiyo macnaha shirku saas oo ahaa waxa kale oo la sheegay 1400 iyo markay ahayd 52 boqorka xabashida ee la dhigi jiray Zul Yaqub inuu la xiriiray boqorkii Boortaqiiska kana codsaday inuu kala qayb galo mashruuciisii saliibiga ahaa boqorkaas Boortaqiisku wuxuu dagaal kula jiray dadweynaha muslimiinta ee la dhigi jiray Andalus waana markii ugu dambeeyay muslimiintu la sii baabi'inayay 40 sano kadibna isaga qabsadayba oo muslimiintii magaalada ugu dambeeyay Garnaada ka saaray boqorka Faransiiska boqorkii xabashida wuxuu leeyahay dagaalkaas Spain muslimiinta ku baabi'isay waa maadaama ay dawlad xoog leh aan kala qayb galo boqorka xabashida ayaa sidaa kula boqorka Boortaqiiska wuxuu boqorkii Boortaqiiska wuxuu waqad ka helay isla sanadkaas baabihii kristaanka una baabuhu ku leeyahay dhulka Afrika iyo Hindiya ee ay degan yihiin muslimiintu waan ku hibeeyay inta aad safarka ku jirtid ama qofkii ku dhinta shaqadaas dambigiisa waa la dhaafay ayuu saa ku leeyahay macna boqorka Boortaqiiska ayuu ku dhiiri gelinayaa inuu muslimiinta sii baabiyo waliba inuu ka tago dhulka Spain ee Afrika iyo Hindiyana uu qabsado oo ficilana way dhacday wuxuu kaloo marka uu yiri boqorku ninka la yiraahdo baabuhu waa in boqorka xabashidana arintaas laga qayb galiyaa waa muhiim dhul istaraatiijiyana ayuu degan yahay isaguna muslimiinta bariga Afrika uu ku duulaa marka isla markaa waxaa loo soo diray baadari weyn oo arintaas xaqiijiya waana marka
nimankan colaadooda iyo dhibaatada ay muslimiinta ku hayeen oo ay marba la jeclaayeen waa taariikh aad u dheer. muxaadarada kale ama darsiga kale ayaan muxuu ahaa kusii dhammaystiri doonaa. ilaa maantada aan joognana adinkaaba u jooga. xiriiro badan ayaana dhex marayey. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay akhru zamaanka kacbada inay niman xabashi la yidhaahdo oo majo dhuudhuuban ay ku duuli doonaan oo ay baabi'i doonaan, dhagax u dhigi doonaan. waxaan marka insha allah inta aan ku guda jirana aan ka sheekay doonaa. horena waan uga sheekeeyey inta mar ay isku dayeen inay maka iyo madiino weeraraan oo ay qabsadaan. marka inta ayaan maanta kusoo koobayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. في السماء تتعالى أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا.